الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إلهي وحوليه سبحانه وتعالى ألا وحسود جي محي أحسن الحديث شاكل لدقيسو ور لدقيسو متك أغسر ريا أغو قيمها بدن أفعال تفضيل بالي هذا هذه أحسن الحديث اللي يدي مركا وحكسر ريا أذيقوا هدادكم مشغوش اللغة وحدا أقول مدح ميل كسر ريسو الله صلاح ميي جرتا ورك إلهي ورك كسر ريا أو وقت اللي قب بحيو اللي دقيسو اللي دقي نقلادانا مجو وأحسن الحديث محوية وكتاب متشابه مثاني وكتاب سؤال أوضا مد معنى مرولبا أجائبتيسا إيو marka aad dooxdo qisaskiisa iyo ahkaamta iyo waxa way khabarka iyo waxyaabaha ku yimid tawjiihaadka tarabixinta marka qaabku u socdo waa mutashaabih qisaska intaasoo jeer baa la soo celinaya waa inaad fahanto sababta loo soo celiyay walidaalika saasay suuratu raxmaan mufassiriintu markay ka hadlayaan dhowr iyo 20 jeer ay ku soo noqotay fa bi'ayyi aalaa'i rabbikuma tukadhibaan waxay leeyihiin mar kasta waxay ka hadlaysaa aayadaasi ma aha shay la iska soo celcelinayo dhagta uu loogu raaxayn lafdigii ka horeeyay qofka beeniya iyo fa bi'ayyi aalaa'i ni'made fa bi'ayyi mid aalaa'i ni'ma oo rabbikuma rabbigun idin siiyay baad in siiyay jin oo tukadibaan beeninaysa waayo laba fa bi'ayyi isku xigaande laba fa bi'ayyi ka aayad baa u dhaxaysa Soomaa ama laba aayad baa u dhaxaysa marka aayadani waxay ka waramaysaa midda lafdiga ka horeeya hadda beeniso beeninta la beeniyo fa bi'ayda soo noqnoqotay baa mid walba waji cusub iyo dareen cusub kaaga baahan kitaabkii dhanay munazalka isagu qisaskiisii kala duduwana wama baaruka marka waa mutashaabih mathani laba u socda hadduu ahlu naar ka sheekay ahlu janno ka sheekayn rag iyo dumar iyo dhul geeri iyo nolol janniya naar qaabkaas oo socda inta kaliya rabbikum yadina wuxuu rabbi leeyahay taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum waxa la qaban dhacyoota la jirida oota dadka ilaahay ka cabsada quluubtoodana kitaabku u bedela adigu marka kitaabka rabbiga aqrido marka aad bilowdo iyo marka aad dhamayso hadaad juz akhrin hadaad laba aqrin haduu dareenkaaga iyo qalbigaagu isku mid yahay dib isugu noqo xanuun baa ku haye qofka macna waxa weeye nafaqada wuxuun cunay hadana sii dhimanaya ee dhiig la'aanta uu siya maxaa la yiraahdaa qofkan baaritaan buu baahan yahay la yiraahdaa macuntu u baahan yahay la yiraahdaa baaritaan buu baahan yahay la yiraahdaa adiga dareenkaaga iyo qalbigaaga haduu quraanka rabbigay wax ka bedeli waayo adigoo juz akhriyay laba juz akhriyay xaqana dhuuxaya ixtiraamkii qadarintii kalaamkii rabbi inuu yahay adoo og qalbiga ku haya adoo aqriyay hadduu wax ka bedeli waayo waa fiika shay dawa haday xanuunsatay say loo daweyn baa leeyahay hadduu qofku xanuunsado waa la daweynaya laakiin dawadii lafteeda haday xanuunsato marka quraanka la aqriday dib ugu noqon laazim ilaahay wuxuu sheegay maxay taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum waxa la qaban dhacyoota ama la jiridhoota dadka ilaahay ka cabsada quluubtooda kadib muxuu rabbi yiri thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah inta wixii ka dambeeyay qofku wuxuu noqonayaa qof leeylan u jajaban awaamirta quraanka iyo isagoo aan isdiidanayn hada adiga quraanku soo kala boodaan oo tira diin iyo dad goorma isugu dambeysay adduunkan dacalka ka galaya waxba ka gali meesha gidaarka ka soo guy shaki kama taagno marka waxa weeye taqsha'im thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah inta wixii ka dambeeyo qofku markuu tadabbur ka sameeyo u fiirsado oo uu quraanku qalbigiisa wax ka bedelo inta ka dambayso xubnihiisu waxay noqonayaan xubno leeylan oo ilaahay amarkiisa u jajaban amarka rabbi subhanahu wa ta'ala u jajaban wax ulaysu dareemaya ma jiro hadii la yiraahdo ilaahay ka cabso hadii la yiraahdo cibaadayso qofku culays uu dareemaya malaha shaqadiisa inay tahay buu ogyahay
haddii kale wuxuu noqon ninkaa uun fadhi ku dirirka ah yidhaahda nin beri dhoweyd qur-aankana aad baan u akhrin jiray masaajidka 5 waqti baan ku tukan jiray qaar bay qiso uun ka soo hadhaya sheeko haddaad tidhaa hadda maxaa tahay qofkaasi kuma sharaxi karo laakiin wuxuu ku leeyahay inuu eegoon waa la yar qaatay waan iska fiicnaan jiray oo nin nool oo waxaan ahaa masaajidka 5 waqti ku tukado oo quraanka iska aqriyo oo iska fiican baan ahaan jiray haye baryahana la yar qaatay isagu uu iska sheekeynayaaba ajiib arrimo la yaab la weey marka kitaabka rabbigay wuxuu rabbi noogu sheegay ahsan alhadith ilaahu wuxuu innahu la tanzilu rabbil alamin allah on ko doono rabbi arre eedag dhamaanteed midka uu rabbi soo dejintiisa way allah soo dejiyay subhanahu wa ta'ala bal iska dhaaf kitaabka waxa lagu magacaabay ruux وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إلهي سبحانه وتعالى روح بكم مقعابي قرآنك هدو سيدا يهي مرك هداية للناس إلهي سبحانه وتعالى قف مرك ورهيك في سنة أو جهة لغو قلائي جهة لغبها عن لهين بجهة ويالا قرآنك هذا أذي بلشدة أذي والدك أذي ددكيني ولا لا دا إسلام إلهيين قرآن كونكو يرد ذلك iyada is abdeed garayn idinka islaami doona hadaadan jihalahayn quraanka jiha ku yeeli waayo waxa leedahay iyo waxa lagu leeyahay uu quraanku ku baraya hadaad aragto qof meel cidla socdana waa qof wuxuu leeyahayna aan garanayn wax lagu leeyahayna aan garanayn wuxuu leeyahay aan garanayn wax lagu leeyahayna aan garanayn way amma haduu qofku quraanka la saaxiibo waxa uu leeyahayna uu garanaya uu raadsanaya waxa ummadda kale ay leedahayna uu garanayo iska ilaalin inta loo baahan yahay waa inta inuu qof walba dahaadkiisa garto baaburadu intuu mid walba haadkiisa socdo ma isku dhacaan iskuma dhacaan goor ma isku dhacaan markuu midi ama biri ha u baxsado ama qof badow oo baraday ha wade markuu midi haadkiisa ka baxo bay isku dhacaan sooma bani aadamku wuxuu isdardaraa markuu san qofku haadkiisa garanay markuu qofku jiha wareero oo jihadu ay ka lunto buu isdardarahayaan markaas uu waalid iyo walaal iyo midna aanu garanay wuxuu reebay ma jirto waxalla wuxuu reebay ma jirto la qaraabun garanaynin walaalnimo islaam baanu garanaynin waxalla wax xuduud ma laha markaas odayaashu markay ku jiha wareeraan bay ninkaasi jiha malay naga daaya la yiraahdaa qaaraankoona nooga qaada marka quraanku jihu ku sameeyay inaad jiha leedahay waxa tahay wa fi anfusikum afala tubsirun warmiyana gare wa fi anfusikum afala tubsirun ilaahi subhanahu wa ta'ala innahu isukaan diraya waruux walaba bal horta adigu isgara waxa tahay halka aad bulshada ka taagantahay waxa tahay haadkaaga iyo cadkaaga iyo cadka laga leeyahay inaad kala garato sidoo kale quraankan marka waa ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisi hadalkii rabbi weeye subhanahu wa ta'ala ilaahi ba soo dajiyay waa mahfuudun fi sudur wa maqru'un bil alsin waa midka laabaha lagu xifdiyo arabkana laga aqriyo masmuu'un bil aadaan waa midka dhagaha lagu dhageysto fal ishtighalu bihi tilawatan wa tadabburan min afdal al ibadat in lagu mashquulo marka in la dhuuxo macnihiisa la barto iyo lafdigiisa in la aqriyaaba si uun loogu mashquulo dhinacaad kaga mashquushaba cibaado iyo waxyaabaha alla weyno loogu dhawaado subhanahu wa ta'ala waxa uu sareeyo weeye waa min a'dab al-qurumat waxyaabaha ugu waaweyn ee alla loogu dhawaado kamid yahay waayo xaraf kasta oo kitaabka rabbiga oo la